boqor Axmed Iimaan Warsame oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo maanta telefishinka Star ugu waramayay magaalada Burco ayaa waxaan wax ka weydiinay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland waqti xaadirkan wajahday furitaanka asxaabta siyaasadda madaxweynaha Soomaaliland ku dhawaaqay iyo sidoo kaleeto ismaandhaafka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland. xaaladdan maanta taagan marka hore Ilaahay waxaan uga baryaa inuu wadaalahay dalka inoo dejiyo, waxaan Ilaahay uga baryaa maanta waxaynu galnay waqti aad u adag ama siyaasad aad u adag, marka ma rabo inaan arintan maanta xisbiyada la furayo iyo arintan xisbiyada mucaaradku isku hayaan xukuumaddu inaan ka hor dhaco, sababtoo ah beesha caalamkuna way soo gashay dab baxayana batrool laguma shubo. boqor Axmed Iimaan Warsame ayaa sidoo kaleeto waxa uu ka hadlay siyaasiyiin ay kamid yihiin Maxamuud Cali Salebaan Ramaax, xogayaha arrimaha gudaha xisbiga Wicid, iyo sidoo kaleeto siyaasiga Jiro ah gudoomiyaha golaha dhexe xisbigaasi Wicid oo maalmihii ugu dambeeyay hadalay warbaahinta ka jeediyeen ku dhaliilay xisbigooda. boqorka ayaa arintaasi waxa uu ku tilmaamay nasiib darro. laba siyaasi oo aniga sharafiga mudan oo Soomaaliland dara oo nin Rabaax la yiraahdo iyo ninkii kale isaguna Jiir labaduba u cudhaayeen geediga ay maanta guureen. waxaan u arkay inuu ahaa geedi qaldan, waxaan u arkayaa inuu dab baxaya ay batrool ku shubeen, leanno fursado badan baa jiray oo habeenkan caawa ay xisbiga kaga bixi kareen ama kaga tegi kareen, laakiin maanta marka wacyigan aynu joogno isqabatay xukuumadda iyo xisbiyadu waqti xasaasi ah lagu jiro in laba nin oo waliba family ka soo jeeda madaxweynaha talada haya inay ka baxaan dadka ama inta siyaasiyadda indhaysa waxay u arkayaan waddankeena lagu tirinayay inay qabaa'ilkii maanta soo shacbaxay oo moogta la qarsaneen inay qabiil ahaan uga baxeen ayaa ummaddu ay aragtaa. taasina waa may tashan, leano waxaad ka soo qaadaa ninka Rabaax wuxuu ahaa bari saabkii goboladoo dhan ka soo shaqeeyay. Soomaaliland waxa ku nool 3 milyan iyo badh baa ku nool, inta jaamacadaha laga soo baxaya, inta waxa jira moogtahay dhibta maanta taagan waxa weeyaan golahan guurtida iyo golaha baarlamaanka xildhibaanaha fadhiya, qaar 20 sano fadhiya, qaar 20 sano fadhiyaan. dadka Soomaaliland waxa la doonay xilka in la isbedelo oo kolba qof uu demoogtahay uu ku noolaado, laakiin hadduu dadweynaha waanu fadhiyana dib weyn. Ramaax markii la yiri goboladoo dhan bari saabaad ka soo noqotay ka yarana siyaasadda oo bedelkeeda xilku waa wareegto cid kale loo magacaabay wixii sameeyay waan ogeyn, xaqu dawladda la maray waan ogeyn, dawladihii kala dambeeyay ila tii udubunbu soo bari saab soo taagnaawn marka leeyla ka fadhiso dhibaatadu sameeyeen ogeyn. haddana xisbigii Wicid buu yimid, waa lagu soo dhaweeyay. maalintuu soo galay xisbiga Wicid Faysal wuxuu yiri salaatul shukri baan tukanay hadduu kula yimid ninka siyaasiga weyn, laakiin maanta waxaan leenahay Faysal maanta hore salaatul shukri baa tugtay, maanta salaatul jinaasa u tuko siyaasiyiinta Soomaaliland ee nooca u dhaqmaya. ugu dambeyntii boqorka ayaa waxa uu laamaha sharci dejinta iyo sidoo kaleeto xukuumadda ugu baaqay in dalka lagu maamulin hab qabaa'ila isla markaasna ay shaqeeyaan golayaasha sharci dejinta ee dalku. waddankan haddaad saani u xukumi weydaan oo sharciyada la ilaalin waayo oo dastuurka la ilaalin waayo, cid dastuur lagu xidhiyo cid sharci lagu xidhaya ma jiro, waa lagu kala tagayaa. dastuur baa la dhigtay, dastuurkuna waa inuu dadka kala hagaa, ma aha in kolba odayaal loo yeedho, in guddi loo yeedho. dastuurka jira adduun Trump madaxweynaha Mareykanka maalin walba oo taliye xilka laga qaaday, maxaa laga qaaday xilka dastuurkii buu jabiyay baa la leeyahay. marka dastuurkan baa dadka qabanaya, hadday gudoomiye xisbi tahay dastuurka qabanaya, hadday madaxweyne tahay dalkan ka madaxweynana dastuurku waa inuu ka sareeyaa, waa inuu ka sareeyaa sharcigu. maxkamadda sare waa inay shaqeysaa oo loo aragin qabiil tahay. golayaashu waa inay shaqeeyaan oo waxay wakiil ka yihiin bulshadii meesha dhigatay inay ka ilaaliyaan wixii dhiba ay ma xukunta fulintu ku hayso ama ay ku hayaan
garsoorku kuwa fadhiya waa iyaga laakiin iyagu haddii leen anagu waanu danaysanayna oo kursigaa ka kici mayno dee dhibteeda leedahay waddankuna inaga burburaya Khalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta Star TV Burco.